Boqolaal qof ayaa ku damaashaadaya hoolka xafladda arooska ee ka jirtay ee ku yaala Qoraqosh ee ka tirsan gobolka Niniwe ee dalka Ciraaq oo ay musiibada ka dhacday. Warbaahinta caalamka ayaa sheegay in ugu yaraan 94 qof ay ku dhimatay, 100 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay xaflad aroos oo ay ka dhacaysay magaalada ugu weyn oo ay degaan Masiixiyiinta dalka Ciraaq habeenkii Talaadada. Aroosadda reer Ciraaq ah ayaa ku weeday qoyskeedii oo dhan oo ay ku jiraan 3 walaalo ah, abtiyaasheedii, iyo dhalinyaro ilmo adeeradeed ah, iyo sidoo kale hooyada arooska. Goobjoogeyaal iyo saraakiisha ciidanka difaaca madaniga ayaa sheegay in dabku uu ka dhashay bululeer ama rash xilli arooska iyo aroosadda ay ku ciyaarayeen goobta ay ciyaartu ka socotay. Ciidamada ammaanka ayaa xabsiga dhigay 10 ka mid ah shaqaalihii goobta, milkiilihii iyo 3 qof oo ku lug lahaa dabkii Arbacadii la soo dhaafay.